السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إن سلامي صاحبي الميل كستوات جوكتان سودو هذا مركله وحربا عوضينا سو قد بيو تينيس كلابات أو كميدة تينيس هذا اللبيه طبعا كتينيس لقد إنجليش كه سودو هذا تينيس كان وحلها simple present tense وان تينيس كلابات واي marka koobaad wuxuu leeyahay qaacido ayuu leeyahay iyo qeextaan uu leeyahay qeextaankan kormareyna is used for waxa loo isticmaalaa an action fala loo isticmaalaa wajikaasoo happens dhacayo every day or daily maalin kasta dhacayo formulation qaacidadii waaye subject plus verb plus object ayuu marka hore ku dhisan yahay mar labaad haddii subjectiga noqdo singular oo noqdo wuxuu ku dhisan yahay subject plus verb plus s plus es plus ies plus object ayuu ku dhisan yahay she, he and it tag waxay qaataan das auxiliary verb oo das ayay qaataan and they, we, you and I tag waxay qaataan do ayay qaataan marka statement waa hadal caadi ah oo aan diidmo iyo su-aal isku dari toon aan ahayn wuxuu leeyahay we beat her every day maalin kasta waan garaacnaa she sits with her friends saaxiibkeed ay la fadhiistaa every day maalin kasta you eat lunch daily maalin kasta ayaad qadaysaa adiga question su-aal ayaan ka dhigayna intii hore do we beat her every day maalin kasta ayada ma garaacna anaga does she sit with a friend ayaa ka maqan sorry meeshani does she sit ma la fadhiistaa ayada with a friend saaxiibkeeda daily okay inta ayaa waxaan ku darsanay daily dan ayada ma la fadhiistaa does she sit with her friend daily ayaan leenahay markaasi saaxiibkeed maalin kasta ayada ma la fadhiistaa and do you eat lunch daily adigu si joogta ma u qadaysaa marka negative aan ka dhigayna marka waa diidmo we don't beat her every day maalin kasta ma garaacno she doesn't sit with a friend every day maalin kasta saaxiibkeed ma la fadhiisto marka meeshani doesn't tadani does not waa dhihi karta no problem you don't eat lunch daily maalin kasta adigu ma qadaysid waxaa negasta question with negative su-aal iyo diidmo la isu geeyay don't we beat her every day maalin kasta ma garaacno miya ayada doesn't she sit with a friend every day or daily so every day and daily isku mid waaye ayada saaxiibkeed ma la fadhiista miya maalin kasto don't you eat lunch daily maalin kasta adiga ma qadaysid miya qaybtaas marka intay ku dhamaatay qaybtan waa qaybta marka esta iyo esta iyo iesta habka ay u kala shaqeeyaan ayaad ogaanaysaa wuxuu ku leeyahay if the verb ends in the following sounds haddii verbka uu ku dhamaado dhawaaqyadan soo socdo sh ss waa sh aan dhahay ch sh ssx and o hadduu ku dhamaado text wuxuu qaadanaya marka verbkaasi es ayuu qaadanaya goormaa markaasi subjective markuu uu yahay singular markuu yahay ayuu qaadanaya oo kale laakiin mar kale ma qaadanayo the boy wiilka goes to the market suuq ayuu aadaa marka go ayay ahayd es lagu daray the man ninka brushes his teeth ilkiisa ayuu cadaysadaa he watches tv ayuu daawadaa it catches the rat dooli ayay qabataa yaanyuurta iyo waxyaabo lamid ah the girl gabadha washes the clothes dharka ayay dhaqdaa she dresses every night habeen kasta way labistaa ayada marka haddii subjectiga the boy oo kale waa singular waaye the man he it and the girl iyo she intaasoo dhan subject hal qof ah waaye ama hal shay ah marka maadaama subjecti saas uu yahay jumladan ay statement ay tahay tenniskan uu yahay simple present uu yahay verbka wuxuu qaadanaya es ayuu qaadanaya waayahay qaybtan si fiican u fahnay qaybta xigta wuxuu leeyahay if the verb ends in y haddii verbka y uu ku dhamaado proceeded by uu kasoo hormarto markaas ama kasoo hormaro a consonant shaqal aan dhahay shibane like sida for example verbka wuxuu ku dhamaaday y laakiin y-da waxaa kasoo hormaray inta ayada imaanin ka hor xaraf kale oo micnaha isagana shibane ah markaas waxaa lagu xalinayaa sida micnaha study oo kale cry oo kale fly reply purify try spy carry
the y is changed into waxa loo bedela I loo bedela and waxa lagu daraa es lagu daraa kadib. Okay, and marka no problem marka erayadan micnahooda iyo waxa sida u baahan tahay. Study waa barasho, cry waa oohin, fly duulid, reply jawaabid, purify nadiifin, try isku dayid, spy jaajusid, carry xambaarid ama qaadid. kadib the y this is changed waxa loo bedela into I loo bedela and add kadib waxa lagu daraa es lagu daraa. waa goorma marka subjectiga uu yahay singular oo kaliya. Example tusaale, she carries the bag, boorsada ay xambaarsataa. It flies its feathers and its feathers garbaheeda ama baalasheeda ku duusha shimbirta iyo waxyaabaha la midka ah. The girl gabadha studies waxay barataa Arabic luqadda Carabiga. He spies the thieves tuugada ayuu jaajusaa. It tries waxay isku dayaysaa ama eega ama yaanyurta to eat ponies lafaha inay cunto. The engine mashiinka ama motorka purifies wuxuu nadiifiyaa the water biyaha. marka carry y ku dhamaatay y-da waa la tuuray ayaan ku bedelnay kadib ayaan es keenay. fly lamid, study lamid, spy lamid, try lamid, purify lamid. waayahay meesha u dambaysa waxaan leenahay but laakiin if the verb ends in y, haddii verbka y uu ku dhamaado marka preceded by a vowel oo shaqal ka soo hormaro, we add the verb as only, as bisan ku darayna markaasi. Example tusaale, she pays money, lacag bixisa. iyada verbkan pay y ku dhamaaday laakiin y-da ka hor waxaa timid a-dana waxaa waay waa vowel, markaas verbka wuxuu qaadanaya as bis u qaadanaya. He plays football, kubadda ayuu ciyaaraa ama banooni ayuu ciyaaraa. She prays the prayer, salaada ayay dukataa. He buys things, sheeyaal ayuu iibsadaa. aad iyo aad u mahadsantihiin. intaan kulmi doono tenniska saddexaad waxaan idinkaga tegay sidaas iyo nabad geliyo.